الحمد لله رب العالمين. مسؤولين labada heer dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeed iyo madaxda bangiga iyo ganacsatada iyo bangiyada madaxa bannaan mas-uuliyiinta inta fadhido dhan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaam, runtii munaasabadda iyo muhiimadda ay leedahay iyo quruxdeeda iyo baahideeda waxaa ka soo sheekeeyey mas-uuliyiintii ugu horreysay oo ama wasiiradii iyo guddoomiyihii iyo labadii guddoomiye bangiga ayaa si aada u qiimo badan uga sheekeeyey. sharaf ayay ii tahay in aan maanta aan furno laantii bangiga dhexe ee koonfur galbeed oo laga furay xarunteedii ku-meel gaarka ahayd ee magaalada baydhabo. aana rajeynayno hadduu ilaaha yidhaaho koonfur galbeed baahida ka jirta inay xarumo badan oo kalena yeelan doonto oo caasimadda ku-meel gaarka iyo caasimaddii iyo degmooyinka bangiga baahidiisa ay taallaba la geyn doono. sharaf weyn bay ii tahay, aada iyo aadaan ugu faraxsanahay. waa wax muhiim ah oo maanta dadka reer koonfur galbeed iyo dadka reer baydhabo horumar ah oo kusoo ziyaaday lagana faa-iideysan doono. aana u sheegayno dadka reer baydhabo iyo dadka reer koonfur galbeed iyo bangiyada ka shaqeeyaba iyo ganacsatadaba inay ka faa-iideystaan waxayna ayna dhowrtaan muhiimadda iyo ahmiyadda ay leedahay furitaanka bangigan iyo in laanta inta lagu suubiyo. waxay muhiim u tahay horumarinta dhaqaalaha, waxay muhiim u tahay shaqo abuurka, waxay muhiim u tahay fududeynta nidaamka maaliyadda dowladda dhexe iyo dowladda koonfur galbeed. waxay muhiim u tahay accountability-ga iyo transparency-ga dowladeed yay muhiim u tahay. waxay muhiim u tahay horumarinta dhaqaalaha iyo rajada dowladnimada soomaaliyeed iyo nidaamka federaalka oo dowladaha xubnaha ka ah qaabka loo wada shaqeynayo ayay muhiim u tahay. runtii waxaan ka mahad celinaynaa mas-uuliyiintii kasoo shaqeysay oo ugu horeeyaan madaxda bangiga dhexe, guddoomiyaha iyo wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed oo wasiirka ugu horeeyo oo ayagana dee munaasabadan quruxda badan iyo shaqadan waqtiga dheer geliyay qabtay. aada iyo aadaan ugu faraxsannahay. waxaa weeye horumarka dowladnimada un tiigsanayno bilow u ah waaye. loona baahan yahay in la adkeeyo, la ilaashado, sida ay tahayna looga shaqeeyo insha allah. wax walbo oo dowladnimada looga baahnaa oo caasimadda loo aadi lahaa in la keeno hoos loo daadejiyo oo adeegyadii ama dhaqaalaha ha noqoto ama adeegyadii bulshada ha noqoto ay soo gaarto dadkii meeshooda loogu keeno. waa dowladnimada muhiimadda ay leedahay iyo nidaamka federaalka ayay ku dhisan tahay. marka sharafay noo tahay, aadaana ugu faraxsannahay munaasabadan qiimaha badan iyo furitaankii laantii bangiga dhexe ee degmada baydhabo laga furay. waxaan leenahay horey u soco, shaqo wanaagsan. insha allahu tacaala waxaan rajeyneynaa hadduu ilaaha yidhaaho waxyaalo kaloo badan oo dhiman oo bangiga ka dhiman oo horumarka iyo dhismaha ka mid ah oo ay ugu horeyso xarumihii kale ee guryihii bangiga u lahaa in la dhisi doono. bangigan quruxda badan oo aan soo marnay oo hadda aragnay iyo qaabka loo shaqeynayo runtii waxay soo xasuusisay birsimaadkii siduu bangiga u dhisnaan jiray. si qurux badanaa loo dhisay. marka bangiga dhexana aada ugu mahadsan yahay, waana sharafay noo tahay. intaas kadib runtii horumarkan iyo bangiyadan iyo horu socodkan dowladnimada ilaahay baa mahad iska leh. waxa ay ku timid dowlad wanaag iyo maamul wanaag
dowladda koonfur galbeed ay la timid iyo ku timid oo ah in bulshada loo shaqeeyo si daacad ahna loogu shaqeeyo dalteedana laga shaqeeyo yay ku timid ayaga iyo wax badan oo noo suurtagalay taasay ku yimaadeen haddana waa sii wadaynaa intaas markaan taas uga baxo waxa ugu muhiimsan oo dowladnimada lafdhabarka u ah oon inta ku joogno oo shaqooyinkan dowladda ay ku soconayso waa amniga waxaan rabaa fariin fiican oo tayada ku aadan inaan inta aan hay-adaha amniga iyo ciidamada qalabka sido iyo taageeradayda koonfur galbeed iyo ka madaxweyne ahaan iyo garab istaagga aan u muujinayno ciidamada qalabka sido la dagaalanka khawaariijta ay kula jiraan inaan baaqeeda inta ka diro marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada qalabka sido noocyadooda kala duwan uu ugu horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada isteydyada iyo ciidamada shacabka ciidanka la yidhaaho halgankii dheeraa iyo dib u xoreyntii dheeray iyo la dagaalankii khawaariijta iyo sidii qiimaha badnaa muddadii 8 bilood inay ahayd aan jeclahay oo dhulka dheer oo masaafada ah looga xoreeyay shabaab oo loogana saaray dhibaato iyo dhaawac xoog badan ah loogu geystay oo wejigii koowaad ahaa waxaan rabaa ciidamada ay dhahayd inaan u hambaliyeeyo oo nidhaaho waad mahadsantihiin dalkiina waa difaacdeen dalkiina waa xoreyseen dowladdiina waa ilaaliseen shacabkiina waad gobonnimo usoo horseedeen shacabkiina gurnimadii iyo gumaysiga ka qaadeen iyo horeyha loo socdo wax yar baa haray wax yar haray hala dhammaystiro yaana laga harin annagana shacab iyo dowladdu diyaar baan u nahay maanta meel kasta oo soomaaliya ka mid ah oo shabaab lagula dagaalayo ama wax loogu dhimaayo ama wax looga qabanayo waxay la mid tahay iyadoo baydhabo looga howlgalay la mid tahay intii dhimatay allaha u naxariisto ehlu jannadeeda waa cibaado waxaa ka shaqeynaysaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ugu horeeyo shaqo uu qabto waajibaadkii uu u xil saarnaa shaqadii ugu muhiimsanayd wey in dalkan dowladnimadiisi dib loo soo celiyo amnigiisi dib loo soo celiyo horumarkiisi dib loo soo celiyo halka cadowga uu leeyahay oo nolosha iyo horumarka iyo waxbarashada iyo cibaadada iyo beerashada iyo tacbashada iyo ganacsigaba u diiday waa shabaab waa khawaariijtaas in maanta uu u soo jeesto oo waktigiisa geliyo oo bilo iyo ka badan uu duurka u joogo waa uga mahad celinaynaa waana ugu hambalyeynaynaa guul baa gaartay horeha loo socdo taageeradaas muhiimka ahaana la garab taagannahay annagana dowlad ahaan koonfur galbeed waxaan diyaar u nahay oon la fadhinaa oon sugaynaa wejigii labaad hadduu ilaahay yidhaaho sida hadda baan u bilownay inaan usii bilaabi doono oo aanan joojinayno inay shaqadaas socon doonto waxaan kaloo rabaa inaan inta uga hambalyeeyo uga mahad celiyo ciidanka daraawiishta koonfur galbeed ee degmada qoryoole oo shalay taariikh fiican oo cashir ah u dhigay khawaariijta oo soo weerartay degmada qoryoole si fiicanna maxay ahaydee waxaysan la soo noqon ku sameeyeen horey u socda meel walba ciidamada joogaan iyo shacab gacmaha hala isqabsado dowladnimo iyo gobonnimo iyo nasabnimo iyo horumar iyo magac soomaaliyeed sheegashadiis kama horeysa shabaab lama bixin maanta inta uu shabaab joogo oo hooyada aadan u tegi karin oo jid aadan mari karin oo ganacsi aad samayn karin oo wax kale aadan qaban karin oo cibaadada isu diiday wax horumar iyo gobonnimo yaalla male wax soomaalinimo jirtana mare marka waxaan leeyahay hore u socda aada iyo aada u mahadsantihiin ciidamada qalabka sida waa in garab taagannahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa mahadsan yahay inuu waktigiisa iyo shaqadiisa uu 60% uu ka dhigo xoreynta dalkan iyo la dagaalanka khawaariijta waa ku mahadsan yahay madaxweyne waa ku garab taagannahay ciidamada qalabka sida sidaas oo kale waa garab taagannahay
nin walba oo Soomaali ah oo wax garanayo oo damiir leh oo aqli leh waxaa laga rabaa intaasay ka badan inuu fuliyo meel walba oo joogtana uu u diyaar garoobo sidii waxaan la isaga xoreyn lahaa ganacsatada inay waqtigooda ugu barangeliyaan xoreynta shabaab ganacsi ma jiraayo hadduu shabaab joogo waa ogtihiin waxbarasho ma jirayso xoog ma jiraayo xoolana ma jiraayaan marka sidaas darteeda dadka Soomaaliyeed maanta midnimadaas oo u baahan in la midoobo sidii shabaab loo xoreyn lahaa fariinteyda ku aaday shabaabka iyo la dagaalanka qawaariijta kaas weeye runtii aad iyo aad u mahadsantihiin madaxdan meesha munaasabadan xarig jarka laanta bangiga dhexe ee Baydhabo ka soo qayb gashay waxaan sidaas oo kale u mahad celinayaa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe iyo tiimka dhan ee shaqaalaha bangiga dhexe ee waqtiga badan ayagana inta joogay aadna uga shaqeeyay inay noqoto laantan inay furanto quruxda badan ayagana aad ugu mahadsan yihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.